toban nin oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa maanta lagu toogtay magaalada Gaalkacyo dhinaca Puntland kuwaas oo 10kii sano la soo dhaafay magaalada Gaalkacyo ku dilayay haldoor siyaasiyiin dhalinyaro waxgarad iyo qaybaha kale ee bulshada sida ka muuqata muuqaalkan waa raggii 10 nin ahaa oo maxkamadda sare ee ciidamada Puntland ay dil toogasho horay ugu xukuntay kadib markii lagu helay in mid kasta oo kamid ah raggaani oo qayb ka qaatay ama uu gacantiisa ku fuliyay dil magaalada Gaalkacyo loogu geystay dad kala duwan haddaba raggan magacyadooda maxaad ka taqaan goorta la xukumay meelaha laga qabtay sida loo qabtay marxaladihii ay markaasi soo mareen intii ay xukuumada kala duwan lagu ridayay iyo sidoo kale waxyaabo badan oo ku geedaaman raggaani dhalinyarada ah horay mar loo diiday in la toogto qaybtood iyo cidda diiday baan eegi doonaa maxay uga dhigan tahay gobolka Mudug iyo Puntland ba toogashada raggan amniga Gaalkacyo maxay markaasi ku soo kordhin karaan falalka noocan ee markaasi toogashooyinka ah ee Gaalkacyo sanadihii ugu dambeeyay lagu geysanay rag ka tirsan Al-Shabaab oo la tooganayay iyana waanu eegi doonaa soo dhawaada muuqaalka noo like gareeya noo share gareeya sidoo kalena channelkeena subscribe waatahay waxa ila jooga farmaajo oo arintaasi si dhow la socday isla mar ahaantaana isha ku hayay dhacdooyinkan farmaajo soo dhow saaka kiiskan dhacay oo toogashada 10kaas nin ka tirsan Al-Shabaab bal ka waran xilligu dhacay iyo marxaladii uu soo maray waxaad ka xasuusato dabcan shuukow saaka abaaro labadii subaxnimo waxa ay taliska booliisku ay baahiyeen muuqaal ama sidoo kale markaasi xog ay ku sheegayaan toogashada 10 ka tirsan Al-Shabaab oo lagu helay kadib marxalad kala duwan oo kiisku soo maray sida maxkamadaha iyo baaritaano kala duwan waxaana runtii raggan la toogtay ay ahaayeen dad siyaabo kala duwan dib loogu xukumay inta badan muuqaaladooda iyo waxyaabaha ay qaban jireen iyo dilalka ay geysteen horay ay u baahiyeen ciidamada Puntland waxaana maanta Puntland ay markale baahisay muuqaalka toogashada waxaana toogashadan ay tahay tii saddexaad oo Puntland rag ku tirsan Al-Shabaab iyo sidoo kale Daesh bala toogto raggan iyo 10 ah tirsigoodu iyo sidoo kale 18 ka sii horeysay waxay ahaayeen Al-Shabaab laakiin rag dhexe oo ay Puntland toogatay ayaa waxa ku jiray xubno Daesh ah kuwaas oo lagu kala toogtay magaalooyinka Boosaaso iyo sidoo kale Gaalkacyo way ragga marka saaka la toogtay ku 18 ka oo kale waxa kamid ahaayeen madaxdii gobolka u qaabilsana kuwan dhalinyaro ku jirtay dilalka markii hadii aad dhageysatay codadkoodii xiliyadii la wareysanayo kale qaybtooda oo kale qayb wax dishay baa ku jirtay ku wada koobnaayeen mise kuwa ilaala iyo wax isugu jireen iyo shaqooyin kala duwan bay qaban jireen shuukow teamka maanta la dilay waxa xusuud mudan xubno ee kamid ahaa inay baxsadeen maalmo ka hor kuwaasoo gaaray ilaa iyo 3 xubnood waxaana teamkan ay u badnaayeen koox dhalinyaro ah oo magaalada dilal kala duwan ka geysatay inta badan kooxdan waxay ahaayeen koox daayar ah laakiin dilal aan laga fili karin iyo kiisas aan laga fili karin geystay sidoo kale kooxdan waxa ay ku jiray nin caan ku ah dhanka babaanooyinka ama ku xirista baabuurta sidoo isagoo afkiisa ka qartay muuqaal la baahiyay iyo sidoo kale cadeymaha ay maxkamadu la soo bandhigay ama lagu soo bandhigay shuukow dhalinyaradan la toogtay dhalinyarada u badnaa dabcan hogaamiyaal waaweyn kuma jirin laakiinse waxay ahaayeen dad markaasi lagu shaqeeyo oo dhibaatooyin kala duwan ka geystay magaalada Gaalkacyo muddada ay shaqeynayeen oo runtii ah muddo aan yareen waxa ugu weynaa mid kamid ah xubnaha maanta la toogtay kaasi oo asagu sida uu qarinaya maxkamadaha lagu soo muujinayaan dilto aan waxay gacantiisa ku dilin laakiinse kiisas kala duwan oo runtii aad u xumaa ka geystay qayb sida soo kormeeris iyo sidoo kale hubin oo kale marka xubnahaas ay saaka la dilay waxay noqonaysaa markii saddexaad ee deegaanada Puntland dhacdo toosho noocan oo sida carabka ku dhufatay maalmo ka hor waxa fakaday rag aad u fara badan dhowr iyo 10 ah qayb baa la soo qabtay qaybna inay dawladdu maqan tahay bay sheegtay ilaa iminka ragii maqnaa ee 4 ah yaa la soo qabtay yaa sawli maqan oo la raadinaya شوكو بحث شدو مركا نقطة طبعا إسلامين بحث شدو فالكدو دعي حمنا إلى يوم نبي تونغاريا
ayaa baxsaday waxayna Puntland sheegtay ama sidii maanta loo jeedaba ay ku guuleysatay xubnihii baxsaday badankooda waxaana runtii maalintii koowaad baxsadka uu ahaa la soo qabtay raggii 12 baxsaday ilaa iyo 8 xubnood waxaana dib laga soo qabtay xubin kamid ah oo dabcan maanta kamid ah dadkii toogashada ay Puntland ku fulisay ka oo markii wareysyadiisa iyo sidoo kale baaritaanadu ay socdeen iyo maxkamadaha lagu soo bandhigay inuu ahaa hogaamiyaha shabakada dhalinyarada ahayd ee al-shabaabka waxaana xubnaha baxsaday Puntland maanta ku soo hadal qaaday goobta toogashada taliyaha ciidamada daraawiishta mudug iyo caan sharma ka sheekh doon oo hadlay taliyaha booliska kadib wuxuu sheegay in xubnahaasi Puntland ay amartay ama isagu amray in meeshii lagu arko lagu dilo ilaa 3 xubnood ayuu xusay in gacanta Puntland ka maqan yihiin wuxuuna sheegay meel kasta iyo goor kasta oo la qabtana in la toogan doono waa afartaas nin oo maanta la toogan laamiya dabcan waa 3 xubnood maalintii koowaad oo baxsashadu waxay ahaayeen 12 isla maalintaas waxaa la qabtay xubno gaaray ilaa 8 kadib dhowr bari kadib ayaa hadana xubin kamid ah la qabtay 3 xubnood ayaan ilaa iminka gacanta 3 marka lafkooda toogasho ku eedeysana ku xukunaaya waaya tan iyo marka xukunadaasi kala duwan intay soo marnay magaaladan amniga bal magaalada gaalkacyo gobolka mudug guud ahaan maxaa iska bedelay شوكو horta in badan boqolkiiba boqol waxa si joogsi ah u joogsamay falalka dilalka madaxduubka iyo sidoo kale qaraxyada baabuurta lagu xiro magaalada aad bay ugu badnayd laakiin se qaraxyadii dambe ee shabakadii u horeeyay ka dambeeyay xataa waxa lagu guuleystay maamulada galmudug iyo Puntland inay qabtaan xubnihii ka dambeeyay marka ma jiro fal ka dhacay gaalkacyo sida hadda loola wada socdo oo madaxduub ah ama qarax ah oo cid markaas geysatay aan gacanta lagu soo dhigay waayahay ayada caqabado badan ay soo mareen baa la yiri raggan maadaama dhalinyaro ay ku jirtay oo mararka qaybtooda hay'ada iyo diiday in la toogto arrintaas oo kale ma jirtaa sida lala wada socdo dabcan waxa jira hay'adaha adduunka ka shaqeeya xuquuqul insaanka iyo caruuraha iyo waxyaabaha noocaas ka shaqeeya waxaana wararka aynu ka hayno runtii sheegayaan in cadaadis ay kala kulmayso dawladdu waxaana la is oran karaa ilaa 3 sano ka hor 4 sano ka hor ayaa raggan maxkamadu ay ku xukumeen dil toogasho intaas ay xabsi lagu sii hayay waxaana shulka u muuqataa in dawladdu ama ay la sugisay waxa loo yaqaan qaangaarnimada maadaama xubnaha qaar ay sheeganayeen wax ka yar daada 18 caalamkuna aqoonsan qaangaar waxay ka yar 18 marka xubnahan maanta la toogtay daayir ay u badnaayeen inta badan waxay ahaayeen dad markaas daadooda iyo dilalka ay ku eedeysanaayeen aan runtii la isku barbardhigi karin ama aan laga fili karin waayahay dhawaan madaxweynaha Puntland baa magaalada yimid gobolka gaar ahaan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug muddo joogay kadibna wuu tagay amniga madaxweynuhu marar kala duwan buu soo hadal qaaday magaalada amnigooda inuu xoogaa cabsi jirto laftirkeeda madaxweynuhu waa muujiyay baa la leeyahay oo habka ilaaladiisa iyo habka meesha ku noolaa deganaa iyo markuu baxaya iyo laftirkiisa go'aan ka soo baxay madaxweynaha jidho amar madaxweyne oo ah magaalada gaalkacyo aan hubka lagu dhex wadan karin oo qofkii hubka dhex wata dawladda ay tilaabo ka qaado kii diidana markaasi in laftirkiisa tilaabo laga qaado marka ma la oran karaa madaxweynuhu amarkan toogashadan qayb buu ka ahaa ama bixinteeda inta badan shuukow taariikh ahaan sicdani iyo gobolkan ayaa ugu badan ee loogu tiiriyo waxqabadkiisa ama ugu horeeya ku calaamadeysan ayaa waxa ka tahay dhinaca amniga gaar ahaan falalka madaxduubka iyo sidoo kale qaraxyada oo kale ah dadka ka shaqeyn jiray inuu ku guuleystay in boqolkiiba boqol gobolka ay si bedeshay intuu ahaa madaxweynaha Puntland runtii doorashadii Puntland la soo dhaafay ee dhacday 8 January 2024 waxay ahayd dabcan ministry mudug ay si weyn in dani uu ku amaanan yahay shaqada uu ka qabtay gobolka runtii toogashada maanta dhacday laba waxyaalood baa la soo oran karaa dhanka dani way soo dadajisay waa mid koowaad oo tan iyo imaantikiisa gaalkacyo waxyaabaha koowaad lagu gortamay ayaa kamid ahaa in xubnaha al-shabaabka u xukuman la toogto oo ay dawladdu intaas ka badan ay xabsi ku sii hayn sidoo kale imaantika madaxweynaha ayaa waxa kulmay baxsashada xubnaha kamid ah waxa loo yaqaan al-shabaabka ama kuwii xukunaa marka maadaama reer mudug ay cadaadis ku saareen madaxweynuhu inuu saxiixo sidoo kalena ay fakasho bilaabeen isaguna markii ugu horeysay gobolka mudug yimaadeen tan iyo dib doorashadiisii waxay soo dadejisay toogashada maanta dhacday waxaana madaxweynuhu ahaa qofka saxiixay toogashada maanta dhacday
aad baad mahadsan tahay intaasaan kusoo gabagabaynayaa macluumaadkan iyo muuqaalkanba waa mahadsantiin adinkuna daawadayaal ilaa halka hadda lala soo gaartee muuqaalka noo la gareeya sii sheer garay oo saaxiibada la wadaaga janalkanaana kusoo biira 60,000 ayaa waxayna nooga dhimayay